iyadoo bishii aynu ka soo gudubnay la gabagabeeyey turxaan bixinta wasiirada uu soo xulay gafanaha dowlad goboleedkan Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa maantay waxaa la dhaariyey 10 wasiir waxaana dhaarintaasi goobjoog ka ahaa gafanaha maamul goboleedkan Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo halkaasi ka jeediyey khudbad uu ugu talagalay golihiisa wasiirada. meeshan hadda maanta waxaa isku keentay shaqada noo dhamaatay oo aad arkayseen oo 10kaas ragga iyo dumarka aan maanta meeshan ku dhaarinay inay u noqdaan countigan wasiiradihii hadduu ilaahay ma ay dhihin 5 sano hadda maanta shaqadan bilaabahayn. waxaan horta ayaga aan u sheegaya horta aan leeyahay mabruuk kwa Kiarabu mabruuk, Allah ina barakeeyo, shaqada Allah ina barakeeyo. Hongera kwa Kiswahili, congratulations in English. Obviously dadka hadda siduu deputyga inii sheegay dad fara badan oo aad u fara badan ba hadda maanta shaqada maanta inii dhaariyay ma artay niyadda ku hayeen ama maarta ayaga ba rajaynayeen laakiin kullayba wixii qadaraan baa iska dhacay. ilaahay wuxuu qadar lama celin karo. marka ma aha in hadda maanta aniga ama deputyga ama inigaba inaan ka fiicannahay ma aha ummadda kale ee Gaarisa degan, laakiin ilaahay qadarkiiba waxaa maanta ay ku dhacday in mas-uuliyad aan qaadnay. horta bal xaqiiqada horta qabsada inta meesha fadhido oo hor fadhido iyo inta kale naga maqanba kama fiicnin, kama nasab fiicnin, kama diin fiicnin, kama akhyaarsanin, laakiin wax iska qorna baa iska dhacay in maanta mas-uuliyaddii ilaahay oo gacanta noo soo gelin. sababta ma sheekada marka markii inta ay tahay arrinta kolka hadda aniga maanta iniga my new ministers hadalka inuma dheeraynay aniga iniga shirka la yeelan doonaa oo si fiican u sheekaysan doonaa. laakiin waxaan leeyahay soo dhawaada, ku soo dhawaada countigan. annaga hadda aniga cabdi iyo speakerga iyo akhyaarta kale waxoogaa baa inaga horeynay almost 2 months baan sii shaqaynaynay. wax badanna waa noo muuqdaa. labada bilood gudaheeda wax badan baan ku ogaanay. waxaan ku ogaanay run ahaantii meeshan inay shaqo badan oo badan noo taalo. waxyaabahaan ogaana waxaa ka mid ah countigeenna maanta countiyaasha kale wuu ka dib dhacay. I want to say this without any fear of contradiction. countigeenna maanta 7 ama 46 kale countiyaasha waddanka waa ka dib dhacnay. marka aniga run ahaantii maanta fadhi ima yaalo. soomaalida waxaan ka maqan jiray nin lagu socdo maxaa dhihi jira aseexani. marka anigu hadda maanta fadhi ima yaalo. hadda meel ani fadhi iniga inta ka fadhiisanaysiinba. marka waa af soomaaliga haddaan ku hadlo waa la ishayaa meeshan shaqa loo baahan yahay. marka shaqada shaqo aad u fara badan diyaar u ahaada inaan wada shaqayn weyn aan galno. cabdi hadda wuxuu yidhi deputyga wuxuu dhahay tantii hore way ka duwanaanaysaa. waxba hadda annaga inaan ku mashquulno dowlad tagtay hadda ama dan ma aha. laakiin haddii tii hore laga caalacali jiray wasiiradaha waxaan maqlay waxay dhihi jireen oo hadda uu nagala fadhiyo wasiiri axmed nadiir waxaa maqli jiray oo soo gaari jirtay lama siin jirin enabling environment. waxaas ma jiraay yacni supportna lama siin jirin iyo xafiiska waxaan u imaan waynay. waxaan qaarkood aan ku arki jiray Nairobi way ku leeyihiin waa iska joognaa meelahan oo maarta xagga shaqo kuma hayno. waan yaabi jiray meesha waxaa ma jiraay. haddii hadda is leedihiin enabling environment baan waaga aan wayne hadda waxaa inii sheegayaa budgetka aad ku shaqayn leedeen budgetkii aad ku shaqayn laheedeen assemblyga already waa ka hadal wayna sugayaaba. horta ma sidaa ogaada meeshan budget la-aan iyo waxaan la socon wayna ma artay support iyo waxaa ma jirayso. marka iniga si baan goor baan u sheekaysan doonaa. nin kasto iyo gabar kasto shaqada u taalla waan hor dhigi doonaa iyo targetska maaragtay looga baahan yahay ilaahay idinkiis. dadkeenna reer Gaarisa ummadeennan walaalaha hadda maanta intaas ina soo raaceen oo niyad wanaagsan inii soo raaceen oo support iyo garab inii soo raaceen oo maantana maaragtay nala joogaan ama na maqlayaan. waxa keli ay sugayaan ma aha in wiilkooda ama gabadhooda ay xafiis ay fadhiisto ama ay fadhiistay ma aha. shaqaa la sugahayaa, waxqabad baa la sugahayaa. waxqabadkana run ahaanta waa inta cabdi uu sheega. inaan horta aniga waxaan rabaa inaan reer Gaarisa aan waxay u kala bidhaamay hadalkii uma dheereynay
horaan u soo hadalnay wax badanna waan ka soo hadalnay laakiin waxyar aan kala saarno dowladdu waxaa loo soo dhistaa inay bulshada wax u qabato dan u qabato dan in bulshada ay maarata dantii looga baahnaa u qabato baa loo soo dhistaa waxaa bulshada maxaa shaqada maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in dadka biyo laga shaqeeyo oo ummadda ay biyo hesho ilaa biyihii waa nolol weeyaan ama noloshii waa biyo weeyaan in cusbitaalaheenna caafimaadkeenna uu meel sare u gaaro annaga hadda waagii hore markaa meeshan aan joogay waad ogsoontihiin qaybta caafimaadka meel fog baan ka gaarnay hadda ilaahay idinkii waa sida aan niyadda aan ku hayo waxaan rabaa meeshan maalinka aan ka bixi doono in caafimaadka waddankan aan ka noqono number one sidaan rajeyna insha allahu tacaala waana ka noqon karnaa wax naga hor istaagan ma jiro safartaasna waan bilownay huwa musafari imeanza we want to become the topmost health care the most health conscious county in this country inshallah by the end of 5 years taasna ogaada insha allahu tacaala marka anaga waxaad ugu ogsoontihiin reer gaarisa hadalka ma dheereenayay anaga manifesto baan watay oo aan kambayn ku soo galay way qoran tahay nimankana maanta la aadiyay way haastaan shaqaad naga sugaysiin reer gaarisa shaqa naga suga inaan biyo badan idin siino ilaahay idinkiis oo magaalo kalima ilaahay miyiga aan biyihii dadka aan u baahayno ilaahay idinkiis ilaahay awoodii ay ku noqoto caafimaad fiican aan ka dadaalno iyo wixii kale beerihii iyo wixii kale loo baahnaa inaan ummadda u samayno shaqa abuur shaqa abuurka ma aha in countiga shaqa laga hela anigu midda aan hadda laigu haasto oo leeyahay nadiif wuxuu yidhi countigii shaqa ma leh ha ila yaabina waxaana ila yaabaynin war meeshii haddii wixii yaraana soo gaaraya ee dan lagu qabsan lahaa ama biyo lagu qaban lahaa ama caafimaad lagu qoqon lahaa ama waarta wadda lagu hagaajin lahaa ama beero lagu hagaajin lahaa hadday mishaar gasho maxaan inay qaban karnaa ma og tahay ummadda waxaa weeye in la faham baa loo baahanya haddii aan wadaan anagoo dhan ba countiga baan shaqa ka rabna hadda countigeena maanta waxaan ugu imaana oo xaqiiqo ah oo nimankana beri aan soo hordhigayno waxaa weeye waxaan u imaaday 7,000 oo shaqaalaha wax ku dhow 7,000 mishaarka ay qaadanayeen waa 450 milyan waan sheegay oo hadalkaa waan ku noqday 450 milyan waxaa noo soo harayba waxaan dowladda kore ka helno waa 150 milyan 150 milyan hal gaari ah oo daawo ah oo lasoo qaado oo la geeyo cusbitaalaheena loo qaybiyo ma deeqayso waa hal gaari oo daawo maarata cusbitaal la geeyo iska dhaaf biyo la qabto iyo dan kale oo la qabto marka countiga inay noqoto sidii nin inta uu dhihi jiray the county is not an employment bureau yani countiga ma aha meel uu shaqo kale laga shaqeeyo misaalka laga qaato ma aha countiga damo kale oo weyn bay leedahay waa adeega bulshada bal horta taasna ogaada oo nala socda oo howlahan uun countiga la soo aadayo oo laleeyahay shaqaan rabnaa arrintaas culays weyn bay leedahay hala ogaado maxaa ii soo haray waxaa ii soo haray shaqa abuur anigu waxaan rabaa inaan shaqa aan abuuro oo dhalinyarada aan shaqo u abuuro hooyinka aan shaqo u abuuro gabdhaha aan shaqo u abuuro lacagaha hadda meeshan ku jiro budgetkeenna oo nimankan ay marin doonaan ay arki doonaan waxaa ka mid ah lacaga ilaa iyo 300 milyan aan ugu talagalnay in hooyooyinka iyo youthka aan shaqo ugu bilowno waxaan leenahay ninkii dhalinyaro ahaa oo shaqaysan kara hadalkan waan ku noqday laakiin waan sii waday ilaa aad fahantiin waxaan u sii wadaya maxaa waa la fahmi la'ay war ninkii dhalinyaro oo shaqaysan kara oo leeyahay aniga haddii aan helo lacag 5 milyan 4 milyan shaqaan bilaaban kara kaa lacag siya kaasaan dad ugu jecel yahay ha ii imaado ninka aan rabo inaan soo koriyo kaas weeye hooyada aan rabo inaan soo koriyo taas weeyaan maxaa yeelay asaga markaan shaqo siiyey 2 iyo 3 buu sii qortay bal inta aan fahanno shaqadii anaad igu imaan laheedeen kaasaa ii qorayba asagana shaqa maarata beecsharo bilowday business buu galay dukaan buu furtay beer buu ka shaqaystay wax kaluu ka shaqaystay asagaa kolka 2 ama 3 aan kuu qori lahaa ilaa meesha kuma hayiye asagaa ku qasbin inuu kuu qoro meeshii aan 50 wiil iyo 50 hooya 100kaa aan shaqaalaysiiyo intii shaqo county laga qoran lahaa waa iga baxay horta sidaa ogaada howlaha aan rabo inaan ka shaqeeyo oo nimankan ay igala shaqayn doonaan iyo gabdhahan horta taas weeyaan hawshaas garab nagu siiya aan isla qaadano aan isla fahanno laakiin haddii aan dhahno countigii un baan shaqo u soo aadaynaa culayskaas dhib badan ayuu keenayaa ma rabno kolka sidii maalin dhaweed nin baa ii imaaday nin walibana mutacallim buu ahaa
وحوي شقان ربا ولا لو حنا شقة كاونتي مانتا وي بيوح دافتي way buu dhaaftay shaqo ma hayno marka waxaan dhahay laakiin waxaan ku hayaa lacag 5 milyan ah in waxa tahay mutacallim ah waan ku joodaa balka proposal keenso oo aad ku shaqayn karto maxaad qabsan kartaa oo shaqo ah oo beecsharo ama business aad ku bilaabi karaa aniga wuxuu yiri intan aleekay mishaar ma ku soo dhameystay ma yaqaan beecsharo buu hadda intan hada aleekaato hadda maanta mishaar ku soo dhameystay bal maanta wax kale aan ku bar rabaa bal iga yeel ma kari kari buu runtuu iska sheegay laakiin hadda waa iska imtixaan kale weeyaan waa laga bixi karin marka waxaan rabnaa inaan hawsha aan ka gudubno waxaan inii sheegayaa aniga insha allahu tacaala arrintan oo shaqadan iyo mawduuceeda waa igu batay waa igu wareeray madaxa igu xanuunay dadkeenina meeshan waxa ninbaa wuxuu dhihi jiray waxaan maqli jiray yaan yuuray meesha waxaad ka urinayso wuu ku jiraa laakiin muxuu dhahay nooma kala go'do yaan yuuray meeshan waxaad ka urinayso wuu ku jiraa laakiin nooma kala go'do hadda aniga meeshan dadkan meeshan waxay ka urinayaan waa iska dareen laakiin meeshan waxa kuma jiro marka shaqo kale aan qabsano meeshan odayaal baa ii muuqda business community ah weliba odayaasta beecshirada aqaano xasan oo kale hadda ii muuqda meeshan waxaa rabaa inaa wiilasha noo tababartiin wixii ninkii shaqo aqaano oo business community ah odayaal ah wiilasha tababara gabdhaha aan tababarano business aan bilowno hadda waxaan inii sheegayaa hadda annaga waxaa noo dhammaaday qaybtii hore audit baan bilownay audit baan ku jirnay audit baa socday inta hadda bil iyo qadar ah ama ilaa ay waqtigii la idhaariya ka sokaba auditkaa socday bal waxyaan iiga sheego waxyaabihii aan ku aragnay welina ugu hadda qaybtii labaad iyo qayb saddexaad lama gaarin hadda waa qaybtii korka kor baa wax ka aragnay bal wixii aan ka aragnay qaybtaas koowaad baa wax inaga taaban rabaa qaybta labaad ee imaan doonta waxaa ka mid ah inaan u dhacno wax la dhaho full ama complete maxaa la isha payroll audit inaan payrollkii aan daba galno oo dadkii aanan warqadihiina keena kadibna waxaan u gudbaynaa head count in shaqaalihii bal countiga faraha badan ee 6,000 ama 7,000 ku dhow bal sidii ayagana aynu ogaana meesha kala jiraan imaadaan leenahay marka qaybtii u hore waxyaabihii noo soo baxay waxaa ka mid ahaa 1,240 taqriiban 1,240 shaqaala oo la shaqaysiiyey oo qaybaha weyn countiga ka mid ah oo aan file lahaynba maba jiraan waa payroll waa iska geliyoon weli waxaas meel lagu arkay waddankan ma jiro yacni qof baa qori payrollkaan iska gelinayaa iyadoo file uusan jirinba oo shahaado aan laga haynin waxba aan laga haynin waxaana aan ka hadlayna ma aha wax inaan iska qoro ma aha shaqaalahaygana ma aha waana sheegi doonaa report dheer baan soo bixin doonaa waxaa weeyaan waa the national government annaga waxaan u yeeranay idaarada loo aqaano department of pastoral management DPM baan u yeeranay ayagaa waxaa soo saareen waxaan aragnay ilaa iyo 180 qof oo ahaayeen assistant director deputy director iyo director loo qoray 180 weeyaan 180 kaas waa inay waxaa la rabay inay wada haystaan degree ma jirto meel yacni according sida maarata laga aqaano sharciga waddankan haddiiba aad noqon assistant director ama aad noqon deputy ama director full aad noqoni you must be a degree holder 180 ka waxaa degree ka haystaan 100 waxaa degree aan ka haysanin 136 yacni 136 out of 180 ma qabaan maxaan ku dhahaa degree ma qabaan waana requirement say ku dhacdana ma garan karaba dadka midda kale oo aan la yaabnay oo hadda ku jirta auditkan waa promotionska sideedaba bal waxay ogaada promotionka sideedaba dowladda rag hadda meeshan waa joogaan dowladdu shaqayn jire 3 sanaba hal mar un baad promotion qaadan kartaa yacni markaad 3 sano shaqayso un baa loo promote garayn karaa laakiin meeshan waxaan aragnay dad ma aragtay promotionska meesha bilawga laga bilaabayba ma aragtay job group ma aragtay waxaan ku dhahaa PQ aan laga bilaabay waxaan aragnay ilaa iyo maxaan kugu dhahaa yacni boqolaal oo directors ah oo ma aragtay job groups yacni sanadkiiba iska boodayeen wax dhici karta maaha
kuwaas oo kale kolka waxaa laazim noqon doonaa in horta la soo celiyo oo dhabarkaaya bal aan iswareysana bal ma dhici karto ilaa waa waxaan jiri weyn waa waxa qaanuunkana ku ah illegal ku ah waa waxa aan xaq ahayn diiniyan sharciyan xaq kuma aha maxaa yeele ninka kale ee asaga xaqa u lahaa 3 sana ee sugaaye baa inta laga booday baa adigoo hal mar bab lagu siiyey oo maarata waxbaba aan maarata lagu marininba marka waan u yeeraynaa shaqa kama tarayno waa u yeerayna waxay balkaalaya maxaa dhahda awarqadihiini sood ku boodeen waa in iswareys meesha weeyaan ma aha iska bood sheekada ma waxaa kale noo soo baxday oon aragnay intaas oo shaqaale ah oo waaweyn oo weliba noo badan dhaareetaas ay kuwa aan sheegaya oo aan xafiis qabinba maba horta waxaa loo baahan yahay qof markii la qoraayo oo shaqo la siinayo hadda nimankan mcyaasha shaqada hawshan kaada way yaqaanaan waa in horta shaqadii lasoo advertise garee waa in shaqadii tartan loo galaa maarkii lagu qoranayo waa in idaaraddii maarata ku codsanaysay ee ku rabtay in u shaqayso ee budget ay leedahay waa inay ku dalbataa waa in xafiis uu jiro ama positionka oo idaaradda ay ka qoran tahay waxa oo dhan mama jirin marka waxaa dhacday waa uun maarata waa la iska qoray xafiis la-aan marka waxaa arki intaasoo directors oo kuleeyihiin aniga waa la qor lakin xafiis ma qabi waxaa ma soconayso luqadda ayada luqad la aqaana ma aha anigana ma qabi jirin ilaahay bay igu ogsoon waktigaygii ilaa meesha aniga bilaabay haddii aan bilaabayna waxaa inii sheegayaa inaan ka tegey county waxeeda uu sax ahaa intii karaankayga ahayd waxaa inii sheegayaa masalan waxaa aniga aan ogaa markaan kor u qaadnay anaga waxaa noo qornaa 3,250 shaqaala waxaa lagu daray 3,467 3,467 waa lagu daray marka ma qaadanayso lacagtii markaa isma keeni karto marka markii uu countigu noqdo county mishaar bixinayo oo mishaar maarata kaliya ku talagalay waxaa kolka dayacmi wax alla wixii kala adeeg bulshada ahaa aniga taas maan danno ma anaga maanta waxaan rabnaa aniga nimanka maanta la dhaariya ad arkayseen iyo assembligaba inaan maanta shaqayno oo ummadda reer Gaarisa way dhib badan baa hayaa shaqa naga suga adeega bulshada naga suga biyana weydiya caafimaadna weydiya iyo waxa qabad sidii aan beecsharo u bilaaban lahayn beeraha u furan lahayn dhalinyarada youthka ee haweenka insha allah markaan countiga bilaawno waa ayna shaqalinaynaa waa wada shaqaysanaynaa intay see la yeli intay say ku imaadeen it doesn't make sense wixii noo soo inuu xogaa aqliga bini aadamka u qaadan kara ma marka waxaa maqli aniga waxaan ahay procurement officer laakiin ma haysta shaqa ma garanaya meeshaan ka shaqeeyo xafiis ma qabi idaaro kuma biirni waxaas wax soconaa waxaa noo qoran oo aan u imaana meesha aan ku aragnay 100 darawaliin ah 100 darawaliin gawaarida hadda maanta socdaan oo imaanina waa 11 gaari waaye xaqiiqadan ka hadlaya been kama hadlaya ciddina wax u dhimana ma rabi waa 100 darawalba hadda qaarkood meesha iska joogaan iska wareegayaan hadda lama joogaanba 100 darawal iyo 11 gaari anigu sa yeele mama garan karaba marka waxaa weeye alaa kulli xaal hadalka aan si dheer ma rabin haddeertan shaqaala hadda waxaan saarnay waxa la dhaho friis waad garanaysiin hadda shaqa haddadan hadda maanta aynala hadlaayo shaqa hadda hayno hadalka ayaa lagu nacin horena waan u dhahay haddana waan leeyahay bal horta waa ninkii dhab horta aan fadhiista maarata muxuu dhahay bal ninkii bal horta hadda aan fadhiisanay bal xoogaa noo kaadiya bal waxaan aan u tashanay laakiin haddii maanta dhan xafiis lagu soo ordo shaqaan rabnaa wixiina uu halkaas sii marayo waxoogaa culays waaye kuwa daraad waxay soo qoreen nadiif wiilkiisa shaqo uu qortay koley waa u maqasheen soo ma waxaa la gabanaya wiilkiisa oo soo ingiriiska annaga shaqa wuu noo diidana wiilkiisa shaqo qortay horta waxaan idiin sheegi rabaa aniga meeshan gabana baan ka ahaan jiri wiilkaygana iyo kuwa kalena ma qoranin haddana ninkaa la sheegay oo leeyahay waan shaquu shaqaan siiye waaba nin warba county anu hayo iska ingiriiska ka shaqaysanayo oo nin weyn oo lawyer oo dowladda ingiriis u shaqaynayaba ma u baahno Garissa county marka kutanakutanka la iska dhaafo waxaan inii sheegayaa ilaahay idinka dowladda way shaqayn cidduu maaragtay insha allahu tacaala maanta waxaan u baahannahay wasiiradaha waxaan leeyahay kaasi inatongoojada soo dhowaada shaqaa noo taala hadalka inaan si dheeramada duurkii baa la gaaray meeshan shaqaana sugaysaa assemblyga arkaysiinna waa speakerga waad maqlayseen
we have a very good assembly. I must tell you this, we have a great assembly. Dad aan isfahmi karno oo fiican oo ayaga waddan qabsan rabaan oo ay dhaheen aan isku heshiinay inaan mar kastoo aan heshiino inaan bishii hal mar aan kulanno aan countigeena maaragtay howlaheeda iswaraysano oo countigana u shaqaysano waxba kama qabno bana speaker your overall maaragtay maxaa dhihi jirtay oversight role please go ahead know what waan u baahannahay but more important we want to have proper cooperation so that we can push our agendas properly. Marka waa mahadsantiin reer Garissa, my brothers Bwana Boaz and of course Hezron and the others. Asanteni sana. I can see the whole team is here. Tumewashukuru. This was a small function, but thank you very much for coming and being with us on this important occasion. Waa mahadsantiin reer Garissa.